haysaan beledweyne huura akoomada ugu shubaa la huura beledweyne xil bay u baahan tahay beledweyne gurmad ayay u baahan tahay waa halku dhiga dhalinyarada iyo aqoonyahanka magaalada Cerigabo oo ka dhiidhiyay dhibaatada haysata walaalahooda reer beledweyne ee gobolka Hiiraan oo uu barakiciyay fatahaad iyo webiga Shabeelle kaasi oo khasaare maal iyo moodba gaarsiiyay waxaana dhalinyarada reer Cerigabo warbaahinta la hadlay ay iclaamiyeen qaadaan gurmad ah oo ay kaga qayb qaadanayaan samata bixinta iyo gargaaridda walaalaha reer beledweyne ee musiibadu ku habsatay waxaana bulshada gobolka Sanaag ay dhalinyaradani ugu baaqeen inay ka wada qayb qaataan ololaha loogu gurmanayo reer beledweyne waxaanu ka sheegaynaa maanta oo maalintu tahay Khamiis 31 bisha Oktoobar 2019 in magaaladan Cerigabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag ay ka bilaabatay u gargaaridda dadweynaha dhibaataysan ee magaalada beledweyne oo masiibo ku habsatay halkan waxa isugu yimi qayb badan oo kamid ah dhalinyarada reer Sanaag gaar ahaan magaalada Cerigabo oo ilaa xalay ay shirar u socdeen ay kaga hadlayeen arintaas iyo sida looga qayb qaadan lahaa iyadoo qayb kasta oo bulshadana la wargeliyo lagu wargeliyay hawshaas inay ka qayb qaataan kastoo muslima oo dareen naxariisnimo iyo walaaltinimo ku jira runtii aan laga aamusi karin marka halkan fariin kula wadaagaynaa bulshada iyo dadweynaha reer Cerigabo dhamaantood waxaanu nahay dhamaantii jir qura wuxuu sheegay rasuulku kaleey salaatu wasalaam muslimku mu'minka kale inuu yahay kalbuniyaan isme yashuddu ba'dahu ba'da barbarka kale oo adkaynayo haddii waxa weeyaan dhismihii bar uu dhaco intii kalena waa dumaysaa dadkaasi waa dad walaalaheena waa qayb naga mid ah jirkeeni oo dumaysa oo dhacaysa oo bukaanaysa oo xanuunsanaysa oo u baahan runtii in gargaar la gaaro dhammaan waxa la doonayaa walaalayaal inaynu isu taagno oo aynu ka qayb qaadano waxaynu awoodno meel kasta ay tahay ilaahay wuxuu leeyahay markuu wareey muuminiinta والذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور مؤمنينتو وكوا أخرية كتاب كإلهي وعلم ليبي تكن أيها مركا عمل ليبي وحلا بحية ومركا إنفاقي وحبحين ليبي إلهي وحو كور بحيي وحلا بحا إنه تهي تجارة يا جنعسي أنا مركا لقو خسارين وحين وقنا جنعسي أدونك إنه مركا شولي شليهي inaad ku faa'iido inaad ku khasaarto laakiin wax la baxaa waa ganacsi Allah weyn lagu faa'iido Ilaahay wuxuu leeyahay yarjuuna tijaaratan lan tabur bilaylay Ilaahay nabigeena Maxamed wuxuu sheegay kaleey salaatu wasalaam qofkii qof muslima dib haysata ka faa'iida waxay doonto ha noqotaa yaraata weynaato in Ilaahay isagana uu ka faa'iideeyo maanta sadaqada aad bixisatid oo ugu gargaartid wiil beledweyne ku baahan ama ku dhiban gabadh iyo hooyo ku aradan kuwa dhaxanta u soo dusayso dhul aan haysan iyo waxay wadaan iyo waxay ku seexdaan toona waxaad baxsatid maanta maalin kamid ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala balaayo kaaga qaadaya ama kaaga qabanaya ama kaaga xijaabaya ee maanta wax qoon damiirkaagu $1 hadaad haysid $2 hadaad haysid $0.5 hadaad haysid lambarada aad arkaysaan ee barta ku qoran ummadda muslimiinta ah oo ku soo wada dira walaalayaal إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا إنه شيء ليبلوكم أيكم أحسن عملا شرعي خير بولا اسكو ابتلين يا مركا ولا اسكو امتحامية وحويا مات النمعادة إنه هيسنه وأنه لكم امتحامية إنه قرنه وكو شكرنا إلهي سبحانه وتعالى سو إنه شيء قرآن كيسا وحويا هدي إنه كو شكرنا وقرنه النمعادة وأنه لو سيادين إياه هدي إنه وركا قرن وحويا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إلهي سبحانه وتعالى ولا ليال القرآن كيسا وحكيري وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن مركا وحي وناكسن اسو كاشنو او اسكو عاونو إلهي سبحانه وتعالى دينتيسا ايو نوغو فري ورير سوماليلاانو meesha aynu ka kaano hadaynu reer Cerigabo nahay hadaynu reer Burcan nahay hadaynu reer Lascaanood nahay hadaynu reer Hargeysa nahay hadaynu reer Boorame walaalayaal maanta waxaynu ka dareemeynaa dhibaatada beledweynaha haysata suuqyadana xaraashka aynu ku iibino qudaarta walaalayaal suuqayni maanta cambiyo moos laga soo heli maayo hooyooyinkeena ka ganacsan jireen maanta gidaarada fadhiyaan sababtu waxa weeyaan 4 cisho oo kaliya ay dhibaatadaasi taagneed ayaynu saameynteeda durba dareemeynaa oo suuqa Cerigabo laga dareemaya oo kii Hargeysa laga dareemaya walaalayaal reer Soomaaliland culays gaar ah saaran hawsha walaalahan reer Soomaaliya ee reer beledweyne hadeynaan ka kicin waxay noqonaynaa kuwa walaalahooda cuna oo dhiigooda cuna sababtoo ah hadaynu dhiig iyo dhimashada walaalahan aynu ka damqan weyno yeynu ka damqanaynaa walaalayaal walaal meesha aynu ka kacno reer Soomaaliland waxaan leeyahay meesha ka kaca oo la hala bilaabo gurmadka hala bilaabo Saciid Muuse Faarax Saciid Qurbaawi warbaahinta Badacas TV magaalada Cerigabo shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti
waxay kuu diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo in si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso